siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga Wadajir ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay in isaga ay ku hayaan dagaal la xiriira dhaqaqiisa u gaarka waraysi uu siiyay warbaahinta Al-Khaliij ee ka soo baxda wadanka Imaaraadka Carabta ayuu ku sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay haatan ilaalo iyo dagaal dhaqaqiisa gudaha iyo dibadda ay ku hayso sida uu hadalka u dhigay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxaa jiro walaac badan oo aan ka qabo weerarkii bishii December lagu qaaday xarunteeda kaasoo lagu dilay 5 ka mid ah ilaaladeeda ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sidoo kale isagoo hadalkiisa wata ayaa waxa uu sheegay in xilligaasi oo si dirqi ah kaga badbaaday waxaa kaloo jirta in dowladda Soomaaliya ay isoristaag ay ku sameysay kulan aan la yeelan lahaa ayuu yiri ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata wadanka Malaysia Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sidoo kale waxa hadalkiisa uu intaasi uu ku daray in sidoo kale cabsi uu ka qabo in dowladda Soomaaliya ay joojiso kulan uu doonayo inuu la yeesho ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata wadanka Masar waraysiga uu siiyay warbaahinta laga leeyahay dalkaasi Imaaraadka Carabta ayaa siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo aad u dheera isla markaana sheegay in dowladda ay awoodeeda ku tijaabinayso sidii mucaaradka wax loogu dhimi lahaa sumcadooda ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame isla markaana uu awood u adeegsanaysa ayuu yiri warbaahinta ayagoo ku bixinaya $100 Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in Soomaaliya ay haatan ka jirto dowlad taag daran oo awood aan lahayn sidoo kalena dhageysanaynin buu yiri aragtida dadka ka soo horjeeda ee mucaaradka Cabdiraxmaan ayaa sheegay in marnaba uusan ka tanasuli doonin isla markaana uu joojin dooninba hadafkiisa uu ah dhisida dowlad federaal ah oo yeelato dalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa si weyn ugu soo horjeeda hanaanka ay wax ku wado xukuumadda Soomaaliya isagoo sheegay in xukuumadda waxyaabo badan ay ku fashilantay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa dhowr jeer hore ku eedeeyay xukuumadda Soomaaliya in ay caqabad ay ku tahay madax banaanida mucaaradka dowladda ka soo horjeeda hormuudka uu ka yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame